ardaygaasi galaaskii baan ka saaray markaas uu wiil maaduu midgaana galaaskii ka saaray qoftiba waanu yeeray maxaa tiri baan ka yiri waa midgaan qoladii aan ka ilaaliyay imaad caayid wax badan tartay reeboona way nagu fadhiyaan haddana waxay doonayaan in liisaabi baa naga maqan wallaahi reeboona waxay ugu suurta galayaan waxbana uma hirgalayaan ilaa xaq lagu leeyahay heede ay iska bixiyaan daydagiisu reeboona wad aad u ammaan jecel way aad u ammaan jecel yihiin waxaad soo kalena wada necb dhaliisha laakiin ma dhaliisha sheegaya maxaa loo waayay siyaasiyiin kale oo madax bannaan oo adigu aad ka mid tahay aqooyahankiiya inaad bareedhaan oo sidaa barkad batuunaad siyaasadda xisbiyada aad qayb ka noqotaan oo aad idinkuna afkaartiina iyo aragtiyaha deegaankiina adeeg geysaan abigo hataa adaa ka mid ah reeboona baa tahay ku soco adigoo wariyaa adigoo weydiinay barnaamijkan ama barnaamijka qayb galayso ma tiri waa nin beeshaasi maxaa looga siin waayay lagu soo qayb galayso أبو شو موديسي؟ كسر. ما دويدين تعينون. عرفت ما؟ كلنتو عن أول نكسر دعوة الواحد كسر دواتان ورئيسك التضباط كان أود الميديا أو ما تمرتي إنه جوي هاي أقوياهن أبيب أحمد حسن أو كمينه معلمين تا كهول جلاء مجالات بورم مدة دير أبيب بل وجهرين كسر دو برنامج كأود الميديا يتضباط كا Somaliland dhawaan waxa ka dhacay doorashooyinkiisa saarnaa ee ururada iyo xisbiyada bal ka waran doorashooyinkii ugu dambeeyay Somaliland sidoo aragtay doorashooyinka dhacay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ciid dhawaan dhawaay markood si aadan wax ku saameeya awdal midiina aad baan soo dhaweynaya. Kullay dalka wax ka dhacay isbedel iyo doorasho aad u qurxoon baa ka dhacay. Horta wax ka muuqatay doorashadii Somaliland ka dhacday in dadku dad ilbaxay yihiin. Dadku inay ay u tartamayeen intay tahay markay kambiga sameeyeen iyo markay hadlayeenba inay ka muuqato ilbaxnimo inay ka muuqato inay nabad ku tartamaan inay ka muuqato dadku inay aragtida kala duwan yihiin heede qof kasta lagu ixtiraamo talabaad ee kale su'aasha kale jirtaan waxa kamid ah dalka isbedel baa ka dhacay horda mid weeyaano dadka Somaliland ku nool guud ahaan wadana hableynaya waxaan ugu hambalyeeynaa waxay muujiyeen ama ayna tuseen in hogaamiye kasta oo ay doortaan oo waxay ku doorteen ka soo bixi waaya oo fulin waaya heede inay xaq u leeyihiin iska bedeli karaan iyagoon u kala harin ay waxay muujiyeen in ay mas'uul kaarkeeray haystaan ee lafteed mooday symbol inuu yahay mid ka awood badan qoriga waan gartay isbedelka Somaliland ka dhacay iyo xisbiga mucaaradka ee xisbiga muxaafidka ee wadaniga ku guuleystay adiga see kula muuqataa ma sha Allah hadda kullee waxay la muuqataa hadda guushu ay xisbiga sameeyeen guul waxaan taariikhiya waa guul aad iyo aad aan la yaab xaqiiqda marka laga hadlo waayo xitaa nabarka lagu kala badiyay ayaa nabar aad u kala badanaa taas waxay muujinaysaa misalno kale xisbigan dadku inay rabaan waayo suuqa wuxuu keenay ballanqaado suuqa wuxuu keenay in waxyaabo badan oo ajantiisa kamid ah uu fulinayo ajandaha uu soo bandhigay uu dadku soo bandhigay dadku ku doorteen waxaan ka rajaynayaa guusha ay dadku isku raaceen ee midka ah hada waa mid oo dadku wax isku raaceen in misalno kale dalka u baahan yahay isbedel haday tahay dhinaca dhaqaalaha haday tahay isku haynta shacabka haday tahay misalno kale baabaca dhaqaale ee dhacay waxay aaminsan shacabku iyaguna u ballan qaadeen in waxa soo dhibaatooyinka haysta in dadka saarayaan ilaahay wuxuu weydiinay ilaahay ku astro waa gartay adigu isbedelka Somaliland ka dhacay ee lagu doonayay in xisbiga mucaaradka ee waqtigaas ee wadaniga inuu ku guuleysto doorashada qayb ma ka ahaydo ma doonaysa inuu isbedel Somaliland ka dhaco boqolkiiba boqol hay maxad ku doontay boqolkiiba boqol waxaan ku doortay waxaan ku qancay heede ajandaha iyo qorshaha xisbiga ku qancay xisbigaasi oo soo bandhigay ajanda uu ka duwan yahay xisbiga kale oo dadku ay arkayeen in future-ka iyo mustaqbalka dalka iyo badbaadada shaqada iyo isku haynta shacabka ayagu maanta mudiin loo doorto waan gartay sax maxaad ku dooratay adigu kulka ya maxaad ku doorbiday niman waxaan ku doortay dalku niyo muddada ay xisbiga kulmiye hayay
laba xilli ka kulmiye Soomaaliya kulmiyii hore u siinay hoggaanka khayr Allah si Allah ha u naxariistee wuxuu ahaa kulmiye wax qabtay ya oo aan la dafiri karin waxyaabo uu qabtay heelka uu gaaray xitaa dhaqaalaha heerka isjeclaysigii wadan jacaylku heerku ka gaaray aad cajiib u ahaa laakiin kulmiyihii dambe inta ay kulmiye saameysay baabiyeen ay masixeen dalkii markaa wuxuu ku sugnaatay in dadka kala tagaan in dadka kala fogaadaan kadibna waxaan yaabaa u doortay waxa kamid ah xisbigan wuxuu watay mabda ah in dadka la walaaleeyo qaftuma in dadka laga saaro qabyaaladdan iyo jeclaysiga in dadka laga saaro misalno kala dhaqaal xumaha haysta iyo siyaasad xumaha ayadu ay ajudo ka bay ka saaraan marka qodobada aan ku arkay awgeed ayaa u kaliftay inaan misalka xisbigaasi ku doortay kuna raacay waa gartay Somaliland xukuumad cusub baa la dhisayaa deegaan baad ka soo jeedaa cod bixiyayaal baad tihiin ka waran maxaad ka filaysaa deegaankaaga iyo xukuumadda cusub ee la dhisayaa maxaad ka wadad baa santahay su'aashaas waa su'aal muhiim ya horta waxyaa beelahan ka soo jeeda oo iska sheego aan wax ka soo jeedaa beelaha loo yaqaan gabowiye Soomaa Somaliland inta ay jirto oo dhani heede Somaliland xaqooyi kamihii waa gartay laakiin madaxweynaha hadda la doortay isagoona la doono wuxuu noo ballan qaaday inuu wasiir la siinayo inuu wasaariyo wax naga siinayo aftima imikana waxaan ka filayaa ballantii uu qaaday 100% filayo ka filaya insha Allah waa gartay deegaankaagu ma hal wasiir inay Somaliland ka mid noqdaan golaha wasiiradu ba door bidayseen mise in dhaqaalaha iyo ilaha dhaqaaluhu yaallo maamulkaga aad qayb ka noqotaan ama nidaamka dawladnimada aad qayb ka noqotaan oo aad xildhibaanada qayb ka noqotaan haddii deegaan iyo heer qaran ay tahay ma intaa rajadinu ma intaa u baahdeen ballanqaadka uu cirro ka soo baxay wasiirka ciltrood ma santahay horta Somaliland diir bin u jibisay diir adag bin u jibisay oo in way la socdayba oo waxay diyaar bin ugu xidhayba aftima gidaarka ay nagu xidhay waxay noo diiday inaan xildhibaan helno laakiin xisbiga aynu ka helno xildhibaannimada ee Somaliland awoodayna tusay wax xisbiga kulmiye oo xisbiga wadani xildhibaan ku leenahay matalada golaha baarlamaanka diirka labaad doonayna inaan jibno wax kamid ah Somaliland tay jirtayba waxaan xaq leenahay ma kala hayn hodan barkut inta kala way imanayeen hodaanu helno wasiirnimada waa gartay siyaasadda deegaankaaga ee aad sheegtay beelaha gabooye muddo badan waxaa ka dhex muuqday xildhibaan barkad jaamac batuun maxaa loo waayay siyaasiyiin kale oo madax bannaan oo adigu aad ka mid tahay aqoonyahankiiya inaad bareedhaan oo sidaa barkad batuun aad siyaasadda xisbiyada aad qayb ka noqotaan oo aad idinkuna afkaartiina iyo aragtiyaha deegaankiina adeeg geysaan abigo cod baasantahay aad baad maasantahay wada su'aashaas su'aasha kaliya ugu dhib badan ba waa su'aasha kaliya qof kastaan waa sheekaysanaa ama soo leysnaa oo weydiiyo hada shakhsiga loo yaqaan xildhibaan barkad jaamac batuun heede hada waa halgamaa ninka sintiisa la sheego ya qofka inta badan waxa la sheegaa marka uu dhintay limintiisa la sheegaa barkad jaamac batuun waa shakhsiga kaliya ee loo dilay afatma waa shakhsiga kaliya ee loo xiray waxa loo dilayay ee loo xiray xitaa loo ceebinayay waxay ahayd misalno kale in siyaasadda laga ilaaliyo wada jaamac barka tuulaha inta lagu sameeyay xaqna wuxuu u leeyahay in lagu daydoota ku darso waa nin mid kale dadkiisa wuxuu qabta inta laga dhaso ma waa nin aragti fogle aad ka dareemayso inuu shacabkiisa la degan yahay oo waxyaabo badan shacabkiisa u qabtay aftama barkhadul ma barkhadu waa hogaamiyaheen runta laga hadlay waayo dunida dhan ee arkaysa adduunyada soo martay dalka dhan ee Mareykanka soo martay nin la oran jiray Martin Luther King ayaa wax ka bedelay waa gartay ee yiri deewniyo runba wanaagsan nin baa ku nibad riiq u sheexa maanta jaamac barkhatuun waa hogaamiye wanaagsan waa gartay aftama isaga iyo qaar kale kamidana I believe inay soo baxayaan imanayaan laakiin isagoo gobolka Maroodi Jeex ayuu muujiyay xubnihii kale ee gobolada sida Awdal oo kale Gabiley oo kale Togdheer oo kale Saaxil oo kale maxaa la idinka dhex waayay abigo inaad qayb ka noqotaan wada wili khayr Allah ku siiyo horda anigu kaabi bahan reebooro maanay ree Awdal maanay Soomaali ya anigu research ba sameeyay
halkaa baan ka baxay waxaan maray magaalada gobolka Maroodijeex baan maray saaxiib baan maray ilaa waxaan taagay Ceeri Gaabo ma gobolada kale Soomaaliland sida gobolka Awdal dadka deganay wadada ka yaabay xawada ku sheegaya waa dadku garaabaya marka arinta ugu sheekayso hada gobolada kale waa niyo saamiga waa dad waxba laga helaa gobolka Awdal waa saamigiin haday tahay siyaasi haday tahay ganacsade haday tahay wariyaal iyo haday tahay bahdii aqoon-yahanada way kula qaadanayaan iltare way kula qaadanayaan wayna kula qiiroonayaan laakiin dhab kama aha maxaa keenay degdegayso reeboorana hadu wada aad u ammaan jecel way aad u ammaan jecel yihiin waxaad soo kalena wada nacab dhaliisha laakiin man dhaliisha sheegaya wafad Soomaa haddaad u tagto ninkii gobolka Awdal ama dabri Awdal ahay ninka wasiirka ama agaasimaha ama cid ay la mitashay gobolkayga ama Soomaaliya iyagoo ku noqday madaxweyne ka noqday madaxweyne ku xigeenada marka u tagto meeshii siyaasadda lagu geynayay uu ku qoslaya waxban kuma qabanayo walaal aftama saawgeed waxaan jecelnahay maanta laga bilayn laga aaminsan ilaa aan xaqayni ka helno awaltan xishoonaynay aan ixtiraamayni kama yeelayno kama aamusayno doorashooyin baa dhaca wax lagu kasbadaa bulshooyinka codka bixinaya ee magaalada Boorame xisbiyadu ay ugu dambeeyeen doorashadii ugu dambeysay ururada iyo xisbiyadu madaxtooyadu ay ku loolamayeen baad kamid ahaydeen maxaa idin diiday inaad heshiis ka gobolka iyo kii saami ahaan gobolka iyo ka Soomaaliland aad ku leedihiin musharaxiinta tirtameena weydiisataan wadciinta waxay badan baa ka maqan gobol dadkaygu ama beesha ka soo jeeda hud dawlad ku nool ma waan gartay waa dad iyagu xoogsada waan gartay yaftama laakiin maanta aan kula hadlayo siyaasadda ugu dhex muuqata xisbiyo badan tamartoodii awooddoodii bay geliyeen yaftama waxaan rajaynayaa haade inay soo bixi doonaan ama ay jiraanba siyaasiyiin bright waan gartay oo cad yaftama oo waxaan aaminsanahay inay ka qayb doonaan heshiisyada la galeen xisbiyada qaar waan gartay kolka maxaad ka filaysaan heshiisyada aad la gasheen maxay inay fulaan oo ballantii noo ay qaadeen ay ka soo baxaan haddii ka soo bixin waayaan laakiin dib ugu maamusayno waxaanu sheegaynaa ballantii iyo axdigii inay ka baxeen waxaad sheegtay in siyaasiyiinta gobolka Awdal markaad u tagtaan ay wax iskaba mas'uuliyadda bay iska keen xil saaran waxyaabaha ku kalifayaan maxay yihiin markaad tiraahdaan annagu deegaankaasaan nahay dadkaasaan nahay gobolkan idin la deganahay ama Boorman idin la deganahay xaqayagii may wada iltrow sheekeynaya sheegadu very interesting waxa jiray inaan aanu iskuulad hayn kubadan wala ciyaar jirnay inankaasi waa nin dheer oo xooggan oo hadal cad oo haddii aad safraaftaan hadal kugu dilaya marka sidaan aan xaq soo qaaday wax weeyaan anoo garoon joognaa ay ku yar dhuuban islaayeen kiyala inuu qaado dhug ku jiiday kiyo ku du fadhiya feed ula dhacaya ka qayliyay oo yaan wasaga iga qabtaay waari qadinu ooyaya ma faantay reeboona way nagu fadhiyaan haddana waxay doonayaan in liisaabi baa naga maqan والله ريبون وحنا صورة قليان وحنا وهيد قليان إلا حق اللي يقول لي هي هذا أسكب حيان هذا واقفتي وقفت ما حق سامي سومالنا رادي سومال لم سامي كراديان ويجي سامي اللي يقول لي يجي وإحنا جم قيهن يجي بنو مؤقل هدينا دقيستان ولا دقيسين حتى حق هنا نصيان كلنا له قبل كنا ويهلا يعطيك الله والله إني هلا وايو ظلمي محمد الصوالح مباركين واقفتي adiga kaabi bahan ma isku dayday inaad bulshooyinka dhex gasho maamulka gobolka ka jira ama laamaha wasaaradaha ama wasaaradaha dhexe aad xaqaagii iyo mas'uuliyadaadii iyo aqoontaadii iyo kartidaadii aad meelaha ku gaadhood u bandhigto very nice khayr Allah ku siiyo ciidda wax leeyahay hay waxa ugu dambeysay ciidda ugu dambeysay aan ku doonaynay isku jawaab wasaaradda waxbarashada ya wixii dhan wala noo qaaday hay وسيركي هوش ولا قصدي يقول خير الله سي تيم براوش لا قال اي لا قال يقول بانيga عرفت ما hawshii wax isbedelay ba waxaan u markii dambe aan ogaaday
hadday tahay wasiir hadday tahay agaasimo guud hadday tahay wasiir ku-xigeen iyo hadday tahay xubnaha dawladda ee kaga jira gobolka awdal heedhe inay ku cadaadis saareen oy ku sababeen inaan anagu booskaalmasi maxay sababtu ma garan karo wadadana ogala xaqayni maxay idinku ogolaan waayeen xaq baad ugu leedihiin cod baad bixisaan cashuur baad bixisaan dhulkaad la degantiisa iyo saxbatay Soomaa su'aashaasi aniga in la weydiiso ma iyaga wayna weydiis aan waan doontay waan raadsaday laakiin xuquuqdeydina ku fadhiyaa waa siyaasi laakiin abi baashu bayskay ka bilaabantaa siyaasaddu heer gobol xisbiye mucaarad baa jira inaad u tacabtaan oo gobolka aad qayb ka noqotaan xisbiyada mucaaradka ama garabyada xisbiyada mucaaradka isbedelada doonaya saa kolka xaqiina miyaydan ku yeeltro saxbato hada doorasho iyo meel aan ka maqnay ma jirto xisbi aan ka maqnay ma jirto wafatuma illa ki asad ya asaasiga waan ku jirnay waan gartay wafatuma laakiin waxa ila muuqataa xisbiyada iyo malaha misal kale gobolka in xaqiiqda inta ka qarsanayaan waa gartay xaqna la maqli karo wafatuma ya haduu qof ogaado in wax uu suurta gali waayaan ha dib isugu isku noqdo damiir tola waa gartay ya haddii arintaasi misalno kale hoos u eegi waayeen wallahi musliin kama aamusina noqdin wallahi ray awdal wadada aqoon-yahana wadad wax fahma haddii ay wixii ka gaabiyeen wal hadii dib gaabin walaal imikada aan ka fadhino waan uga fadhina xaq waxaan gobolka lahayn waa gartay wasaaradaha kamid ah meesha heer waa malaha dhow ilaa tan wasaarado gobolka ka qabsha waa waxaan kalaana hal wasaarada inaan wax ka noqono walaal hagrasha jirta deeniyo hagrasha jirtay hagrashadaas ma jirtaa maxay tahay hagrashadaas sida waxa kamid ah inay siyaasiyiinta reer awdal haddana shacabku ma eedeynayo siyaasiyiinta reer awdal ee aan xuquuqdeena u dhiibnay dawladdu wax xuquuq sama aan xuquuqdeedu aan yahay xuquuqdeedu imaam aan xuquuqdeedu wallahi ayaa wuxuu doonayaa inuu aniga caburiyo waa gartay ya laakiin awal hadaan aan islahayn dib dadku xaq gartaan riboona waxa nagu noqdeen reer awdal dadaan waxba garanayn ay garashadu ku yartahay anaga hadii kadib xoolahayni si waxayna u gartaan hadlayna sheegan gobolka waxa jira dhaqaaqyo bulsho ama bandhigyo waaweyn baa la soo bandhigaa haddii danaha gobolka laga hadlayo haddii dhaqaalaha gobolka laga hadlayo kulamada bulshooyinka lagu horumarinayo abeeyo fagaaraha kama muuqataan waxaad timaadaan xilliyada doorashooyinka la yiraahdo xilliyada maxaa la idin waayay dadka wax wada qaybsooyay wax wada intuu waxaad ku daray maxaa la idin waayay heede xafiiska siyaasadda heede haddana kamid ahay bandhigyada la bandhigayo sidku ogaanaysaa oo lagaaga marti qaaday waan gartay ya ma fatima macnaha barnaamij la qabanayo ama fagaar la isku imanayo haddaan wala lagu marti qaadin oo aan qodobka hadalkaaga laga siin ما تكيمني ما تهضل لك دارين يا عرفت يوحي استعماليان سياسة اللي يلهدو عبرين بريشر عرفت ما وأنا دتكي ويرين ميلها الوصول بديك عرفتوينك لو فلانقينا يو أدي أنا بفيل لو ويرين هذا إذا برشة أهان إذا دتكي كلام أنت شو برنامج كقريب كشيء كويدي أنت شو برنامج كقريب كشيء دوري أطاي أنت شو برنامج كقريب بتي وري ما تري محا مو ويدي سيبر محا بيش عشان لو بس قريب نومي مو ويدي سي حتى هذا كم يدا هي بور بتاي كوسا أديو وريا أديو ويديني برنامج كان أما برنامج كقريب كله يسول ما تري واني بيش عسي محا لو بس سيماي لو بس قريب نومي ويدي سي بس شو ويدي سي كوسا ما ويدين جاينو عرفت ما حدية برنامج ده لأنه مستقاد أو لأنه يرو هذا وأنا قصة قبل كلام هدف كيني وشديد وكلي بينا والله كبول شاهان أقوي هند ليدهين تضوح برتيبات ليدهين تضجن عصيدة يبول شوي كقريب كأباتهين أنا ذي سبب وشان وضوحين هذا وسار ده يو نحفيش هذا قبل كي يكون هير قرني مدحوين هذا أقبلك يبل مبال لقى على الضونة تاني ما حد كدي دينا والله حسيدنا والله وانو لقى هاي والله لقى لي ولا له شيء هاي بلن قاضي سمينيو دبت استبن فلنيان ده عرفت ما وانكرت كل مية بلن لقى سمع ودني إيمي كانوا بلن لقى وحوي نو بلن قاضين إن شاء الله وحرجينيا الحسب كيما ترى قبصتي بلنتي يحديقوا قاضي إذا هي إنك يسوقي وفريدي وانكرت أذيك أبي بهان أقويه هم بعد هاي والشدة أنت صنّات كو دحنوليد وبورمات كو دارته كو بربارته كلك ما عقبال هذيك كلا كلنتي والشدة بورمة مدة عاد معلن نواده هيدا عيلترو دوار تاي
وارتايو أنا مدافر السنة كل بور ما كنا ولا كمتين وليجي وحنا مرينا يعني أنا بقول ما كتير دون صاحب وحيابها واحد قصة إليا بدنا نقول مين تنشوف كل مين المرة ما نلاقي كل واحد كم ذا وحنا مرينا قصص واحد عادي كل يسقال بقول دور سكاشكي لو يسكاشكي صدق سكاشين هيدون مرينا يعني لو إنه رأي أوضلا هذا والله بني ورأي أوضلا يبرتمان مقالة بقول من اسكت توكتي قصتين نقول صورة كلا ويسكت توكتين نكى واحد اللي بروح عمري أو أجمري قولي البيرها كسوتشيرة أي ليهين بشدي بروح حتيري أدريس بشدي بروح حتيري نجويا نكدي نكى للدري ده كيسي قرية قطيس الحفتي كلنا إسلامك يقول بيتلين ويقفلنا ويداوعين dadkii magaaladii markay maqleen dadkaaba nin dilay wal xaafadiba weerareen aan wax xasuusay wasbanba waxaan digana xalanay waxaan ogeyn waxyaabo muujinaya waxa kamid ah dadkii agaarka naga diganayo dhan ayaa markii warkii maqleen beesh anaga ka dhigin hada beelaha dhan ay gabuyo xaafada anaga ka dhigin ilaa hadana waan diganay dadkii caruurtii iyo dumar qaar dhagax soo qaata كان بدو سوقات يا أيه قولي سويرين هذا عبد الدقيسو واي سويرين قولي مثلا قصة إحنا ولا شيء ده هو دور سكاشناتك الله هو نحارستين نقول نتولي يقولي شاركين هيا يقول الصبح قول الصبح هو يجري والله هنا نحفتك لي ندح تقول أنا مثلا كلا لهذا لي هذا نيك واحد لي ما هبي له قوي nin markaa dhinac joogay oo haaday awdal ayaa wuxuu dhacay sidii wuxuu yiri waa la dambaabaya ninka dilay waa nin hebel la yiraahdo oo gadabuursiya kadib askadi baa yaacday waxay waa kuwa ku fil dilay dadkii uu soo yaacay anaga waxa noo yimid guriga aan ku noolaa waxa noo yimid ciidan baa noo yimid ciidankii baa qaaday markay qaaday saldhigina geeyeen saldhiga markay geeyeen saldhiga aan geeyeen أيام السلام كله أودياش وحيد هذا محل نقدري نيجي وحدي أنا جماعة نيجي هدين تينا أنا جماعة والحمد لله يسنته مكون حسطايو أوديال وين مكلون حسيدين تيو مسيجمع جودات كم يضحى جورين نور كم يضحى أيات أنا تسوقي وأنا حسطا مركب أودياش يني يلهتين وإنه أنا جا ولا بقول مكو جورين هذا مقالة ولا كو جورين كنا ودياش وحيدا وخرط بعد عيد بصاص بعد عيه نجتين أفتما ما كان حين ورد عين قفل بسميين وير منو قانين دقرنا وي نجي جيستين سمع بقول ميو أنت حصلنا نقسم يصير مالنا كمان علم سايت هنا قبل هذا كله سومالي لان سومالي لنا قبويها شو حقوقي كهران أنا قبل حين ودي ذا قيم maxay ku hayeen gobolada kale weydin dheer way jiraan aan maray aniga kula hadlay hargeysa wada tagtay xilli baan ku leenahay agaasimiyaal bilii wasiir ku xigeen bilii gibilii ku hayaan waxaan jeedaa saaxiib ku hayaan tugdheer ku hayaan kulkooda maxaan u diiday jeltare waxa gobolka awdal ku noolahay waa lagu fadhiyo ku sugnaayaa waan gartay gobolka idinku imika maxaad ballan aad heshiisiye aad la gasheen in xisbigaasi ballantiinii idin ballan qaado haddii uu fulin waayo ka war wada khayr allah siiyee madaxweyne wada waxba kama sheegi karno wali madaxweyne ku xigeenku waan la kulanay si qurux badan oo dadnimo leh oo wali soo dhaweyn loo soo dhaweeyay ballan qaadna loo sameeyay ballan qaadka insha Allah waxa ka rajeenaa inay fuliyaan hay abi bulsho badan baa tihiin oo magaalada Boorama darcal walba ka degan aqoon adaa kamid ah shakhsiyaadka maanta tusaalaha u ah ay reer Boorama ay arkayaan muddo badan bad macallin aad ahayd muddada macallinimada aad ku jirtay maxaa adiga aad isleedahay waaya aragnimo ka soo maray ama dhibaatooyin ka soo gaaray هذا واحد ويتشان دبتي بنشراقي مرتاح لكن وحيابس أنا قاريين هاي ما يفهمتي خذوا عجسوي كل اللي واحد كم ذا كل بس كويسين وعاي كل أرضيها لكن حتى واحد قاعد يلين أرضي قاعد يستمع أرضي قاسي جلاس كم كسهري مكاس في ويل ما أدري متجانا جلاس كسهري وفتما وهذا ياري هذا تلوه خيري ومتجانا وقولوا لي كذا هذا يمال عايد وحفظ الترتيب
waxaan xasuustaa ninkii misalno kale uu xishoodiga tagay أنا واحد قوليس قفانا ولي مهين قوليس خي وين كرت قفت ما ويسكية والسيمبل ويسكي ما كران لكن واحد كسب حكوا ناكسن هذا أنا عداد سلف ستريم كي هاي صح أديك أبي بحن حكوا قرشيس وحي قرشيسن أندونيا إن مثلاً وكلاء نودت كي ينصوكي أنا شخصياً حتى مثلاً وكلاء كي أدبن بكريكليان waxyaabaha anagu xasuusta kamida marka qaar mushaharkayga ayaan marka qaar ku bixiyaa oo ardayda wax barta nuudan yar baan mahniyo waayo ma haysan waxyaabo dadkii shaqooyinka shaqooyinka iltrow ya xaflada marka qaar tagaa waxaan yiraahdaa war xaflada dad iskuulka iyo yiraahdaa waxaan sameeyaa in isbedel dalkan dadka ay sameeyaan oo ismuujiyaan sax waxa uu weyn waxa weeyaan motivation dadkayga inay kalsoonida soo celiyaan gobolka marka shirarka jireed la qabanayo danaha gobolka laga hadlayo ama madax dhaqameedku ay shir jireed qabanayaan waxa idinkaga jiray Suldaan Ibraahim Dacri Yuusuf oo kamid ah dadka deegaanka aad ka soo jeedo oo kaliya odayadii kale iyo dadkii kale maxaa iyaga u diiday inay salaadiinta iyo bulshooyinka ay soo dhex karaan oo ay wax la qaybsadaan odayada saxaabad tahay anagu mid baan nahay halgeysida dadka arkaysa intaas Suldaan iska biyaacaya inuu Suldaan baan leenahay Suldaan keenina waa Suldaan Ibraahim Dacri hadduu Ibraahim Dacri hadlo cid ka dambaysa daba hadlaysaa jiro kun jeer buu hadlay hadii dawladda Soomaaliya nagalaadahay oo indhaha qarsanayso waxaan sameeynaa walaal ya laakiin waxaan suunadaa Soomaaliland hadii iyadu xuquuqdeena dhageysan weydo xuquuqdeena ka heli weydo inaanan adduunyada dhan u sheegin waa gartay arintii isku duwaha marka doonatay ee aad weeday maxaad choice kale ama albaab kale ama meel kale ma samays waxa kaloo isku dayniyo inaan aan doonto agaasimaha xogayaha guud ee gobolka xogayaha guud ee gobolkana bari warqadii qaadad saada buu qaado wadiyo doorshil u gaarayda waan gartay xogayaha fulinta gobolka haye dad kale oo xilal way jiraan dhalin badan way jiraan walaal haye oo waxaan doontay anigu hay eegin dhalin badan wax doonatay ya oo sidaas maxay dhalinyarta ku dhex muuqanayeen bulshada ku dhex soo dhex gelinayeen abi waxa jira cil tireen haye khudaniyan waan ku waramay aan weligii bulshada lama noolaanto haye nabiilada ka soo jeedo lama saaxiibin haye kuma dhex nooli waa fatma anigu bulshada kale ku noolahay waa gartay inta badan waxaan ku dhiiri geliyaa in dadka soo dhex galaan in dadka la jaan qaadaan in dadka xaq ka doontaan ya hadda halkan joogno waxaan ugu leeyahay waniyo heede soo faa'iido male ya waa in xafiiska qaraacna oo xaqinaysan waa gartay kolka ugu dambeyn fariinta aad diraysaa ee guud maxay tahay هذا فرينت جود أنتري واحد ويان نبركود واحد نوهم بلينا مدحوينها عصوب إدل الله دورتي وندعين يروح ندعين إلى هاي نحل كوجا كواس ترى كان ديجو كوا لقوا مستنيهم يا وكوا أنت بندت كمية ضدك دقالو هو ينورش ذكرية صح أو سمية سناني عدالة واقف تام بيش يوسف جينا واحد كم ذا هذا واحد الصادق جود بينا هيش دي بينا واقف أدوك شخصيا من رجال سين حكومة عصب قيب كان نقطة هذا هير قبل هير قرنت هاي اسكت دقيقة خد عارف واحد شيء رسمه متهاجية صعبة هايو عارف واحد شيء هاي حتى نعرف كلية هاي وكالية وانا اسكت يحبط إن كهلو وانا كل شيء إن شاء الله هاي هذا جاي السياسيين تقابل كحرير كي تكره حياة واسترون فريق نظام كاد وضريك عصب محوكية وحنا مثلا يسكت حدنا أنا قد حذين أول مسيمك يمكن بوجود بديه أنا قوم مذا أيام نعود شيء نصح واقرتي وضع مع سنتهاي داود ريال كاسوعها أقوياهن أبيب أحمد حسن أو كميدا برياشة مجالة بورما مدبر نكون ولا مجالة بورما أيام ما ورئيس تضبط كود الميديا مرتين نجوها أبيب أريد بدو مع سنتهاي